noocaagoo kale in aan aniga yasaa mataqaan oo aan bahdilaa u agteeda ka noqdaa qashin fiiris ah oo cudur ah. macnaha waa heer aan gaaray aniga maanta Sharmaboy ahaan, heer aan dadka agtooda ka gaaro waaye. qofka qiimihiisa maalin buu ogaadaa, ma garate. aniga agteeda eeyaha mataqaanaa, eeyaha caadiga lafaha loo tuuray inaa ka tahay waxaan ogaaday markaa aniga qiimahayga arkay. kuwani ku dhashawas qabyaaladaan rabaa inaan barto in adeero gacliyo iskuul aan u galo. wuxuu isleeyahay ninka murursada caysay abgaal hees u qaad, abgaal tabar iyo xoog ka raadso. ma fahanta waa siyaasadda uu dheelaya ka fikir fiiriya aqligiisa meesha uu maraayo. filinkan dhanna waxaa ka dambeeya waa ninka Cadnaan Moodal. filinkan dhan Cadnaan Moodal ka dambeeya waa Majeerteen, waa Ciise Maxamuud. wax ka aqli badan adduunka Ilaahay ma awood. أنا وأقول لك يا دم سنة إن عندنا سنة أنا وأقول لك إيه وشكل هاي سياسة وهمية قلنا مرنا حمراء راعينا سوا على القاس سنة ترمز زاد ولا اسمع زاد حمرك عشوة يقبو عبد القيد أفكار كدور خورك كبر سوا وريا سنيك بعد سنيك لما دوش اللي أنا الغصة فيها ضدك أفلقاتيني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دجي بروفايل كاغا بولشاوي سار جوجل قل مقعيسة صبر بقوركا واتساب يا وايا بولشاوي واتيغا صبر بار عبد الفتاح بلشاوي 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 بلشاوي عبد الفتاح 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 بلشاوي جنك داوانا سو عبد الفتاح بلشاوي وفشي الفضل هديتي مركو جورس جنك يا صوب وقان صح حشمه كاغا عصنيا ان مقال كان سي شير غريسو اصحابتاده لو ودا سيدو كل يوتيوب كينا سبسكرايب سو صار لايك شير كومنتي انت باس كوغو دو ساعي وان كورداع كو اركيسين با waa laba muuqaal oo is saaran mid waa CK Sharmaboy marka Sharmaboy hees cusub soo qaaday oo CK ku karbaashayo dadku waxay arkaan waxa markaas baraha bulshada laakiin waxaan ogahay waxyaabo badan oo baraha bulshada ku jirin ma la socdaa hadaan rabo dadka isku diray hadaan rabo wax heshiisiya waxa soo shaqadeeda taas waa CK Sharmaboy ayadana waxbaan ka oranayaa ku fogaan mayo midna waa Big Moha oo hees soo qaaday heestan Sharmaboy ku karbaashaya heesna lama oran karo asna wuxuu bixinaa raashin oo heestii Sharmaboy soo qaaday oo Muuse Suudi iyo Cabdi Qeydid uu ka hadlayay oo raashin ka bixinaya marka ina heestaasna waxa weeye aan raashin ka bixiyay mar Big Moha laba qaybood kaliya ka soo qaadanaya oo raashinkiisa kamid ah iyo sidoo kale fartan balbalaar ولو لكن waxaan la yaabanahay fartan balbalaar waxay fahamtay ilmaha yarka maanta uu fahmi karaa fartan balbalaarna waa arki doontaan ayadana oo ka hadlaysa iyo qaabka wuxuu fahantay marka aan markaan soo fariisanayo aan kaamiradan soo fariisanayo aan rabo inaan wax nii sheego waxa weeye waa inaan soo ogaadaa xanta iyo xogta dhabta ah anoo cadeemo inii wada inaan hor keeno sidaa daraadeed waxaan leeyahay wili mar labaad ku celinaya mar saddexaad inaan muuqaalkan si share garayso YouTube-keena subscribe soo saarto marka heestaan ku hormarina CK Sharmaboy way dambeyn doonaan laakiin raashinka Big Moha ka bixin heesta Sharmaboy baan rabaa inaan wada daawano marka heestada bilaaban doonaa Somali waa hal ababir uma ayaqoon dhan uma ayaqoon dhan Somali rap anaga ka talinalina caalamkan dadka kula jirna nida wadna hora kugu dhahay rap banka ahay malaxsida asashe beelow baraka beel wuxuu yiri Soomaali waa hal inta biir soo cabto qoom dhan lama caayo buu yiri waa sax Sharmaboy min biir khamru cabaa subhanallah taas ma ogaaniga marka wuxuu yiri markaad cabto biirka bad waxa ayda qoom dhan taasaan sheegay ismu raashka bixinaya laba qayb kaliya ka soo qaadan doona wuxuu yiri Soomaali rap music-da anaga u talina Big Moha talent wala rapka waa fiican laakiin talada wali ma gaarin wuxuu yiri caalam baa tartan kula jirnaa music-ga meel dheer baan gaarsiinayna taasna Sharma kaaga dhow in kara gaalimiin soo rasiya Sharma taan kaaga dhow oo deemaanta wali fanaan ajnabi iyo collaboration ma qaadin laakiin talent waa leedahay codkaaga muusigaaga laxankaaga waa another level laakiin wax yar ku dhiman waa ina hore u socotaa marka qayb waa qaybtaas inta qamri soo cabto ba qoom dhan caayisa ugu leeyahay okay taas waa taas mid labaad ku soco
mar siyaasad wax miyay gelin marna xamra raacayna sewa halkaas sanatar mususu zaadala halka casway gabo abdu qaydid afkaaga ka door oo quranka ka baxay snake bad nigga snake labadoo shilin inaa lagu soo siiya dadka ha aflagaadeyni wuxuu yidhi siyaasad waxba igama gelin baa leedahay marna waad soo caaysaa muqdisho iyo dadkeeda soo caayaysaa oo siyaasadii baa ku jidhaa hordhacaad ka soo aragteen sharman bay haddaa qabiilka baraynaa anaana baraya waxa weye buug iyo qalin baa ugu qoraynaa jifooyinka iyo qabiilada loo kala qorayaa saa hordhacaas ba ugu soo aragteen waxa weye sharma boy qabiilka waa la barayaa arbacaan waxaa raba ummaddan inay wada qabyalistayaal noqdaan wada qabiil la noqdo laakiin maaha in laisku dagaalo laisku dulmiyo ma aha laakiin waa lagu xifaaltamayaa sharma dee horta heesuna walba waa beenba siyaasadda soomaaliya waxba igama gelin dee wax waa ka galeen waa kana uu ku faanaya reer puntland baa haysaan wey dheg qabiilka la baraya qabiilada kolbaashi ama rursada kolbaashi abgaal buu ammaanaya okay marka taas baan kaa leeyahay bigmaha sidoo kale bigmaha wuxuu taagan yahay bigmaha gaar buu qabaa marka siyaasadda laga soo tago heesaha horsooda waa been wax run ah meeshaan kuma jiraan marka haddii waxay ugu yidhaha siyaasadda soomaaliya xag ima gelin oo siyaasad ka hadlayo adigiiba hadda waxaad difaacaysaa cabdiqayd waxaad tiri cabdiqaydiid afka kala bax muuse suudi miyaa gaartaa markaas siyaasaddii waa ku jirtaa siyaasaddii waa ku jirtaa meeshaan cid wax ka maqan male ama qabiil hees maanta soo qaada bigmaha khasisho maxamuuda usoo qaadaysay dal xoreeye siyaasad uska waa ku jirtaa laakiin waxaa ku fiicanta markii hore waxaa tiri maada oran siyaasadda soomaaliya kuma jiro wax saas aad umaad soo qaadin la jambaa tahay boontiyada iska helo boontiyadaas oo kale laakiin sharan boy waa laba afleeyaa maanta saan way berri waa saan weji adi laba weji uu weji badan yahay ciladaas uu leeyahay dadka dhan wada ogyihiin aniga waa nin saxabkay waa ogahay waa nin iska wejiye badan hadallo badan nin dee caado quman oo toosan ma aha marka asaga isduqeeya sharma waa ninta badan saas isduqeeya marka asaga siyaasadda waxaa igama gelin laakiin annaga barayna siyaasadda iyo qabiilkaba waa baraynaa okay marka bigmaha intaas keliya kasoo qaadanayaa okay fartumar falaar bal waxay fahantay adiga muuqaalka daa fahmi weyd baan garan waayey okay fartumar falaar ayadana oo daawano waxaa arkay hees uu sharma boy soo qaaday waa siyaasad waali ah sharma boy garaashka muuse suyid iyo wuxuu uu amaanaa murursadiina wuu caynaa waa budget uu ka dambeeyay meesha wax lagu gadiiftaajiyaa waa budget uu ka dambeeya ninka la dhahaayo cadnaan moodal wallaahi aqligiina ka xisaabtama daaroodka wax ka aqli badan ilaahay horta ma abuurin because budgetan ila dheelayaan aqligiina waa inay ku dheelaan inay isku keendiraan ha ka yeelina wuxuu isleeyahay ninka murursada caysay abgaal hees u qaad abgaal tabar iyo xoog ka raadso ma fahanta waa siyaasadda uu dheelaya ka fikir fiiriya aqligiisa meesha uu maraayo filinkan dhanna waxaa ka dambeeya waa ninka cadnaan moodal filinkan dhan cadnaan moodala ka dambeeya waa majeerteen waa ciise maxamuud wax ka aqli badanna adduunka ilaahay ma awood saana waa nugula ogyahay haddana saana inaan dhahno saana dhahnana waa nugula ogyahay fartumarbalaar waxay fahantay anigu fahmi weyd aan wada garan mayo dadku waa caydan aqla saca wajeer waa saan waa aqla saca waa ka dhahe horwaadana fartumarbalaar baa fahantay murursada la garbaashay ama dhuruwaha kusoo tilmaamo ama wuxuu ku tilmaamayay sharboy juudaan miyuu suqaal smaris ha waa juudaan waxaas baalu ku sheegay abgaalna waa la amaana ama ayaga la isku diraya wiya dhexdooda la isku diraya jifi qabiil baa la isku diraya kuwa la amaanaya kuwa la caynaya ininka waxa weeye fagaraya la isku jabiya marka fartumarbalaar waa fahantay laakiin ana fash ma ahan gaar bay qabtaa okay marka bigmaha ay sharma halkaas ka baxaya waxa uu gudagalaynaa CK iyo Sharma Boy marka CK iyo Sharma Boy dagaalkooda waa dagaal reality anigana waa huriniga dabkaas u jeedaan baa ku huriya saas u shida xaaba ahaan baa u shidana sababka hadaan isdagaalin maqaaxid wax lagu shida malaha sida daraadeed marka hadda waxaan dhigeysan doonaa waxa weeye jawaabtii la yiri ummadda u bandhig oo CK loogu talagalay oo aniga si bareefad marka lagu soo diraliyaa ka soo hadal ama soo gudbi ama soo dhig la yiraahdo ba soo gudbinaya marka ila daawo noocaagoo kale in aan aniga iyo saam mataqaan oo aan bahdilaa u agteeda ka noqdaa qashin fiirish ah oo cudur ah macnaha waa heer aan gaare aniga maanta Sharma Boy ahaan heer aan dadka agtooda ka gaaro waaye qofka qiimihiisa maalin buu ogaadaa ma garate aniga agteeda eeyaha mataqaanaa eeyaha caadiga lafaha loo tuuro inaa ka tahay waxaan ogaaday markaa aniga qiimahayga arkay fuumani ku dhasho
aniga wixii la yiraahdo ka hadal baan ka hadlaa marka CKO ay waa ka liidatay ay dhalay baa waliba tahay oo beestira la tahay ala dadka waaweyn afka la galay marka arrintaasna muuqaalkan aan ka diyaarin doonaa waa sheeko dheer muuqaalo badan iyo codad badan baa la soo diray oo CK iyo Sharma dhex maray waxyaabahaas oo dhan muuqaalka labaad baan insha Allah ku soo gudbin doonaa marka aniga waxa dadku washidaya waa wacaya cod isoo dubanaya muuqaalka isoo diray dagaala ama dhawashiisiyo adana hawsha socoto weey marka arrinta CK iyo Sharma ayadoo codadku dhameystiran yihiin iyo muuqaaladaba insha Allah muuqaalka ku soo gudbin doonaa marka inta muuqaalka ku kulmi doono waxaan kaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عبدي فتح بالشاوي كانك وانا قوابي خذنا نوبلاني قوتو إلنا وبياني عبدي فتح بالشاوي كانك وانا قوابي خذنا نوبلاني قوتو إلنا وبياني عبدي فتح بالشاوي كانك وانا قوابي خذنا نوبلاني قوتو إلنا وبياني